daawadayaal waxaan doonayaa inaan halkan idinka soo gudbiyo dhacdo naxdin badan oo ka dhacday xalay toole magaalada Burco. Waxaa xalay toole Burco ku geeriyootay Allah naxariistii jannaha ugu deeqe maamo magaceeda la oran jiray hooyo Aamine Aadan Dirir oo u geeriyootay goob caafimaad oo ay daryeel caafimaad u doonatay balse taa bedelkeeda wadkeedii uu yaalay oo irbad lagu muday darteed degdeg halkaasi naftu ay uga baxday oo ajasheedii ay sidaas ku soo dhamaatay maantana lagu aasay magaalada Burco. dhacdadaas iyo sida ay ku dhacday ayaan doonayaa inaan idin soo gudbiyo anigoo halkan khadka si toos ah uga wareysan doona gabadhii ama haweeneydii la socotay hooyadaas oo ay jaar iyo saaxiib haayeen oo u sii raacday goobta caafimaad. balse marka hore waxaan doonayaa iyada oo waliba muuqaalkan uu digniin u yahay guud ahaan bulshada Soomaaliyeed inay ka taxadiraan goobaha caafimaadka adeegayaasha caafimaadkuna sidan si dhaanta ay bulshada ugu adeegaan maadaama maalin walba uu soo yeerayo war dhiila leh oo sheegaya qof goob caafimaad adeeg caafimaad u doontay oo ajashiisii sidaasi ay ugu dhamaatay dawooyin la siiyay darteed amaba lixaadkiisa ku waayay sida inantii dhawaan aynu ka aragnay warbaahinta ee da'da yareyd ee iyadoo indhuhu xanuunayaan hooyadeed u geysay goob caafimaad si dawo loo siiyo indheed kabacdina dawadii la siiyay labadii indhood midna ay ka soo dhacday midna ay qaraxday muuqaalkaas waxa muuqaal aad iyo aad u naxdin badan. daawadayaal ugu horeyntii aan idinka codsado in aad u wada ducaysaan oo aynu wada ducayno in Ilaahay naxariistiisa janno ugu deeqo hooyadaasi xalay toolo geeriyootay hooyo Aamine Aadan Dirir. waxaan jeclahay inaynu janno ugu ducayno waxaan kaloo jeclahay in qof kasta muuqaalkan daawanaya uu duceeyo walaasheed Safiya Aadan Dirir oo naxdintii ay ka qaaday markii ay la kulantay walaasheed oo geeriyootay oo dhakhtarka ay geysay loona sheegay in geeriyootay kooma u gashay oo iyadina imika xanuun u jiifta. intaasi haddii aan ka yimaado bal dhacdadani xalay toole sida ay u dhacday waxaan ugu horeyntii soo dhaweynayaa Ugbaad oo ah haweeneydii la socotay maamadu xalay toole markii ay tageysay dhakhtarka. assalaamu calaykum Ugbaad mana maqlaysaa? wa calaykum salaam. Ugbaad bal waxaad nooga warantaa shilkii naxdinta badnaa ee aad goobjoogga u ahayd iyo sida uu dhacay iyo sida aad sheekada ku ogaatay adigu. walaalow shilku wuxuu u dhacay horta qadar Ilaahay baa dhacay amarka Ilaahay baa yimi. walaalow waxaan tagnay farmasiga anagii maxkamada dhimatay Ilaahay u naxariistay. iigu soo celi walaal iigu soo celi maxaad tidhi walaal Ugbaad? Allah u naxariistay anagii maxkamada anagoo wada socona baan galay farmasiga oo tagnay. waa gartaa. marka warqad bay sheegtay shaybaad oo loo soo qoray. waa gartaa. waxay u dhiibtay inankii farmasiga jeclahaa ee joogay. waa gartaa. inankii warqadii buu eegay dadka ku rida waa ku qoran. waa yahay. dawadu waa maxay ku joogto waa Iraaq. waa yahay. waxay tiiraab ku waa noocee wuxuu waa Iraaq halkaas saaran. waa yahay. dadna waxay ku jiri Allah u naxariistay waxay ku jiri irbadaas waa nab ahayo bari baan ku xanuustay irbada aad baan u nicebahay waan ku tabcaanay. waa yahay. dadna wuxuu ku ma laga yaabaa adigoo gaajoonayo aan waxba cunin inaad irbada qaadatay markii hore. waa yahay. dadna waxay timay man gaajoonayna waan ku xanuustay irbadaas anigoo wax cunay baa la igu muday laakiin waan ku xanuustay aad baan ugu tabcaanay. waa yahay. dadna wuxuu ku yiri mid nooc kala ma kaaga dhigayo ma ku bedelaa oo tan ma ka dam iska deynta hada ku xanuunsatay. waa yahay. dadna waxay tiri ma ee bal horta iskaga kari caawa tan hadii Allah raxmaanka qadaro hadii aan ku xanuusto way diga bedeli doontaa. waa yahay. dadna wuxuu yiri shiliishki weynaaye mar lagu wada qaadayay ma haye ee shiliishka yar baa yaala marka laba jeer baan kaaga kala dhigayaa. waa yahay. dadna waxay tii horta markan hore aad soo qaadaysid in yar igaga soo ka soo qaad inta ay ku teeri gareen. waa yahay. inanka sidii uu yeelay waxan siisil leeg ayuu ku soo qaaday shiliishkii. dadna waxay tii halkan waxa weeye farmasiga wajigii laga soo galay halkan fadhina xagga dambe aan tagayaba intaasaan qaacay waxa yeeshay. waa yahay.
dabeetana inankii wuxuu yidhi waa yaheena mari xaggii dambe u tegey aniguna waan raacay kursi suuliga kadinkiisa ayaa ku fadhiisatay aniguna mid u dhow waan ku fadhiistay inankiina mid kasoo horjeedu ku fadhiistay markaa kaanoolihii buu sidaa u furay dawadii buu shacabka ugu saara waayahay marka dawadii xitaa kuma sii wada dayna marba in yar buu saa ugu dhigciyey inta yarada meesha ku jirtay ma garanaysaa 2 jeer buu marba in yar sidaa ugu dhigciyey waayahay dabeetana waxay ku tidhi oo sidan iyo dawada miyaa lagu shubaa dadka horta waxaad noo sheegtay halka lagaga muday ma misigta iyo sida loogu muday halka gacanta bidix baa lagaga muday gacanta bidix oo kaanoola lagaga xiray oo xidid la raaciyey waayahay ayaa lagaga mudayay dawada waayahay dabeetana wuxuu yidhi haa qofka irbadda mar laguma sii wada daayo hadduu doona awoodiisa maba qaadi karto markaad irbadda saa qofka mar wada raaciso waa laga yara tashiilaa waayahay dabeetana waxay ku tidhi ilaahay ha u naxariistee maalinta horaan irbadda ku xaniistay mar baa laygu sii wada daayey waayahay markaasuu yidhi may mar laguma sii wada daayo irbadda tarbiib baa loo wadaa waayahay intaa inankii markay tidhi dawadiina 2 jeer uu sidaa shilii ugu qaaday dee uu raaciyey kaanoolihii in yar oo aan waxba ahayn meesha ku hadhay intii badnaydna ay quraaradii ku jirto waayahay ayay inantii ruuxan bilowda kurbato waayahay inantii ruuxan markay bilowday kurbatay waxaan ku yidhi bashiiroo ka daawada wata ruuxantay midha xanuunka sheegay sidaa haye waayahay inanka wuu ka saaray shiliishkii intii ku jirtayna wuu kala noqday kaanoolihii uu ku xidhay furkii waayahay shiliishkii wuxuu saaray halkan mis yaro agtayda ah oo moobaladii waxaase noo saarnaayeen dabeetana inantii ruuxankiiba ku farabato aad bay u ruuxanto way gariirtay waayahay dabeetana waan qabtay saasoo kale aan u qabtay baadilkeeda ayaa saasoo kale u qabtay waxaan siiyey gidaarka madaxa ku dhufas waayahay inantii ruuxan badan bay samaysay ruuxan badan bay samaysay markii dambe way hunqaacday xoog bay u hunqaacday waayahay markay hunqaacadii kasoo dhammaatay wixii dee uurkeeda ku jiray haye ayaan saasoo kale dib ugu toosiyo kursigii baa madaxeeda saara waayahay sidaa ugu celiyay dib dabeetana way ashahaadatay waayahay markay 2 goor ilaa 3 goor inantii ashahaadatay ashhadu laa ilaaha illa anta ashhadu tabcaana ay ashahaadatay haye bay inantii hiinsaabtay 3 jeer waayahay bes inanta markaas wax xarakaada iyo wax dhaqdhaqaaqa iyo wax dambe ugu dambeysay waayahay intaa doctorku ila joogay sharaab qabow buu keenay biyo keenay inantii wuu ila wadwaday wuu ila eegayay dee doctorkii meesha dee dhakhtarkii inankii farmasigii meesha joogay buu ahaa wuu ila wadwaday amar xaasil inantii markay dhaqdhaqaaqi daysiye wixii kursigii baan kusoo jignay annagoo badan telefoon baan garaacay dad baa ii yimi maxaan kugu yidhi faamligeed iyo dadkeeda dhan meesha wuu kusoo batay inantii miis baanu saarna meel sariir yaroo qol ku jirta baanu saarna waayahay faleemu ku xidhay inankii faleemada way ku socotay waayahay inantii halkaas ayaa ugu dambeysay dhaqdhaqaaqa iyo ruuxan markii dambe aanu qaadnay dhakhtarkii geedna waxaana lagu yidhi inantii waa meyd dee waa sheekadu caynkaasay ahayd ogbaad waxaad ka warantaa imise minid baad u malaynaysaa in daqiiqaduhu ay ahaayeen marka falkan uu dhacayay muddo inta leeg bahay walaa annagu guriga waxaanu ka baxnay markii aanu maqrib tukanay maqrib dabadiisii waayahay ayaanu guriga ka tegnay saacadda maan eedin oo dee dembi baa igu soo dhumanaya haddaan ada intaasay ahayd maya waxaan sheegayaa haddaad qiyaas ka qaadato daqiiqadii la muday ilaa daqiiqadii dhaqdhaqaaqa ugu dambeysay muddo inta leeg baad ku qiyaasay ugu dambeysay markaan eego aan saa uga waxaan ilaa iyo 20 mirir mudda waa gartaa ayaa u dhaxaysay waa gartaa markaa inantu wallaahi dee walaa saasay ku baxday qoraalka ilaahayna wuu jiraa qofka dee saacadiisa maalinta dhamaato mana awasho mana aqrito waa run weeye qof kasta maalintiisu dhimanaya bal ogbaad waxaad ka warantaa dawada dhakhtarku ma tijaab ahaan buu markaa hore ugu tijaabinayay mise dawadii caadiga ahayd buu doonayay inuu caadi dawadii caadiga ahayd ee loo soo qoray oo doctoorku soo qoray warqadda ku taalay bay
waan gartay laakiin ma wuxuu tijaabi ma mariyay tajribe ah in ay allergy ku tahay ama jirkeedu ogol yahay inaanu ogolayn wuxuu isagu markii iyaduba allaha u naxariista waxay doonaysay dawada markii hore ma ku xanuunsatay door hore ma ku xanuunsatay bal waxaa la eegayay inay sidii ku noqoto ay markii hore ku noqotay iyo inay ka sahlanaato oo aan ilaahayba dee waxba ku yeelana iska caafimaad qabto waan gartay labada xaaladaas baa laga kala hubsanaya laga kala eegayay waan gartay marka dee ilaahayba kama dhigina teedii bay noqotay oo way dhimatay allaha u naxariisto waayahay allaha u naxariisto islaama marka maantana sidaasaa lagu aasaa maantana sidaasaa lagu aasay haa dee faamiligeedi iyo reerkeedi iyo odageedi iyo dadkeedi way ku heshiiyeen sidaa lagu aaso dee dhakhaatiirtii markii la tusay dawadii iyo warqadiina dee dawo doctor soo qoray oo aan khalad hayno dadkuba qaato dee iska caadiyadeehay marka wax mas-uuliyada oo uu qaatay farmashiigii muday ama dhakhtarkii ma jiro farmashigii waxaan jecelahay anigu mana hubo wax sheegayna ma arag inaan looga teginba oo markii aanu qaadnay ee ka qaaday kadibna waa lagu soo noqonba oonu aaskeedii xitaa iyo xabaashii aanu ka daba imanba wallaahi saa ma hubo walaalo ma hubo anigu iska xaafadan joogay markaa xagga xabaashii iyo geeridii inuu raacay wallaahi iskama hubo waxaad hubtaa un markii la qaaday inaan wax ka qaadin oonu sii raacin maya markaana muu raacin laakiin intaa telefoonku iga qortay wuu nala soo hadlayay xaaladeeda ka waran buu gulaa sidee bay tahay deetana waxaan ku uri markii ay inantiiseen guri waameed waxaan ku uri bashiiro inanti waameed oo way dhimatay deetana wuxuu uri inaa lillahi wa inaa ilayhi raajicuun ilaahay u naxariistiyo islaamada waa garta allaha u naxariisto waayo ogbaad aad iyo aad baad umahadsan tahay ayaan tagaa mudan intaas ayaan daawadeen kusoo gabagabaynayaa waraysigii aan ogbaad la yeelanay waxaan mar labaad idin xasuusinayaa inaynu ducayno hooyadaasi geeriyootay hooye aamine aadan dirir oo aan halkan tacsi uga dirayno 11 caruura ee ay ka tagtay oonu halkan tacsi uga dirayno iyada waalidiinteed aan halkan tacsi uga dirayno saygeedii axmed oon halkan tacsi uga dirayno walaaladeedii guud ahaan qoyskeeda aan leenahay ilaahay samri iimaan haydinka siiyo daawadayaashana aan leenahay fadlan waa digniin ee dawooyinkaad qaadanaysaan aada isaga jira adeegayaasha caafimaadkuna aada haysaga jiraan in dadka caafimaadka usoo doonanaya aanay sababsan gacantooda